السلام عليكم. halkani waa cilaajka daarutooba qaybtiisa magaalada Nairobi. wiilkan dhalinyarada ayaad u jeedaan ma ahan oday da'weyn balse 15 jir iyo ka yar ayuu ku bilaabay inuu shaqaysto kana soo dhalaalo dhalinyarada asaagiisa. dalka South Africa 15 sano ka hor ayaa lagu sixray wuxuuna isu maray isbitaallo aad u fara badan balse dawadiisa muusan helin. nasiib wanaag haatan wuxuu la kulmay Sheekh Rusheeye Yare oo uu muddo ka hor doonayay jeclaana inuu ugu tago magaalada Muqdisho balse haatan uu ugu yimid magaalada Nairobi. ma sahlano inaad adiga oo dhalinyaro ah ka soo dhalaasho dhalinyarada asaaga ah oo aad la timaado dadaal iyo firfircooni dheeraad ah balse cadawga oo idil ayaa kuugu soo gabanayo xaaladaha noocaasi. waxay ugu talagaleen inay ka dhigaan qof aanan waxba qabsanin waxayna ku cuneen oo sixirkaasi sababay dadaalka iyo shaqada uu shaqaysanaya wiilkani dhalinyarada ah. dabadeed alxamdulillah ilaahay ayaa ku mahadsan wuxuu sababsaday quraanka Allah subhanahu wa ta'ala iyo gacanta Sheekh Rusheeye Yare magaalada Nairobi. حسد نيمو يا ما قصر السحرية ما قصر هذا دور سنة لا ما قصر دي هذا الله شيء ترى هذا سنة واي بس سنة شانية 8 سنة سعر كمعن سيسي مع سيسي ملقوس سيدي معه سعر جين كريستانا وسوديبتي يا جين بايجي جين كريستانا وسوديبتي شنو بالله سوري بي كريستانا لو سوديبتي دقيسو في كان جوي وريا في كان جوي وريا ما قال دلتي وريا دقيسو وريا دقيسو ما يمغلسا ما يمغلسا عليك ما يمغلسا استاك قباف وريا دقيسو محوري باتو قيس السعر وريا سعرك محوري باتو قيس سبب حقو حنوجي سعرك كركر انو سامي يا ميلها ودر حقوي ميلها ودر لا مدح كره ودر حي حيد دار مدح كلي دقيسو دكتور ميو تجي نكن دكتور واكي maxaa laga sheegay wax la sheegay malaha maxaa ugu talagashay sicirka ma inuu dhinto ma inuu silco maxaa ugu talagashay inuu cayo adduunkan iska doqon iska meel iska fadhiyo kali uu san shaqaysanaa ugu tiri galnay inuu san shaqaysanin doqon meel iska fadhiyo inuu noqdo idageyso wariya ma ka baxaysa haymay ado waa sheekh ugu dhigantay wariya ma ka baxaysa baan ku haymay ma ka baxaysa haymay war ma ka baxaysa war ma ka baxaysa baan hadal de ma ka baxaysa hadal istaag istaag wariya soo jeed halka ninka ma ka tagaysa iska tagay misuriya wariya dhigis war ma ka tagaysa ma lagu warkay mar dambe lagu warkay wuxuu dareemaya maanta laga bilaabo caafimaad kartidiisa soo noqday dhageyso halkaas soo istaag halka xagee uga jirta jirkiisa korkorana ku jirta halka ka soo istaag Allah bataaganta halkan soo carada bobsi wariya halka soo istaag wariya dhageyso ma dhiigaagii baan cabaa misaad halka soo istaag halka wariya halka soo istaag ku bobsi dhageyso horu soo istaag farta bobsi halka soo istaag مردم الوركية كعرض ماشي جورو يا الحمد لله إلهي بأمهله القانا ودار التوبة وشفا دار التوبة وحنا ما نوح ننسن إلهينا عافماد بوسيي أنت لمن وحرجينا يعني إلهي راعيه ماشي أنا مال شفاء ويه داونا لك سيي الحمد لله إلهي بأمهله waxaan rajeynayaa inta dhiman oo caafimaadkan iga dhiman in ilaahay ka isu raaciyo markii aan imaanay xaaladeedu waa xaalad adag baan ku jiray dhowr waqti baan u tagay Hindiya aan u socday alxamdulillah walaahi caloosha laga hayay madaxa laga hayay jirkayga oo dhan xanuun baa ku jiray xanuunkii waa iga digay ilaahay baa mahadla iska leh ilaahay noogu soo dhiibay daawada sheekha waan ku mahadinaynaa alxamdulillah rabbil caalamiin halkan waxaan ku jiray maanta waxay tahay toddoba dad baa ii sheegay horena YouTube-kan u arki jiray waxay yiraahdeen sheekha wadaadka Rusheeye la yiraahdo anigu magaciisa ma garanayo wadaadka Rusheeye la yiraahdo baa jooga Nairobi
bal rusheeyana fiiri dhaqaatirtii haddaa ka quusata sidaasaan ku imi dhowr isbitaal baan tegey waxaan tegey dhakhtarka neerfaha waxaan tegey midka madaxa iskaanka waxaan tegey dhul badan baan maray lama tirin karo dhakhtarkaas baan u tegey wax muhiimada oo daawo ah oo aan ka helay ma jirin xaaladdeeda hadda waa stable waa fiican tahay maasha allah inta dhimanna waxaan raacinayaa aan rajeynaya in ilaahay i raaciyo ilaahay baa qur-aankiisa daawo ka dhiga marka ilaahay baan ka rajeynaya insha allah isagaan aaminay qur-aankaan aaminay inaan ku daawoobayno isagaana daawo kale ma jirto marka dadka waxaan kula talinaya insha allahu tacaala way xanuunsan inay yimaadaan oo qur-aanka ilaahay aaminaan si ay ugu caafimaadaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyn Sheekh Rusheeye Yare ayaa dhammaan muslimiinta caalamka u diray hambalyada iyo tahniyada maalmaha ciida ee inagu soo foodleh wuxuuna sidoo kale shaaciyay ayaamaha uu cilaajka fasaxa ahaan doono iyo maalinta sidoo kale dib loo furi doono bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay baa maadlay jalla jalaaluhu naga dhigay islaam aan oo doortay ummadda Maxamed cali salaatu wasalaam inta kadib waxaan rabaa ummadda muslimiinta meel kasta joogaan inaan la wadaago insha Allah tacaala laga yaabo maanta oo ay sabti tahay inay tahay aakhir yawmin min shahr ramadan maanta u dambaysa bisha ramadan inay noqoto waa la arkaa inay berri tole ay noqotona oo axadda ah maalinta ramadan u dambayso inay noqoto waa la arkaa waxaan rabaa marka ummadda muslimiinta meel kasta joogaan inaan la wadaago insha Allah tacaala xaruntii cilaajka ee magaalada Nairobi fasaxii ciid aan galeynay maanta uu noo bilowday oo sabti ay tahay wuxuuna sii socon doonaa insha Allah tacaala maalinta arbacada waxaana dib isugu soo noqon doonaa oo dadkan aan u cilaaminay ee halkaan aan rabnaa inaan ka cilaamino maalinta arbacada in dib isugu soo noqonayo insha Allah tacaala si maalintaas arbacada marka cilaajkii iyo quraankii uu bilowdo billahi tabaaraka wa tacaala marka dhammaan walaalaha muslimiinta safarada ku soo jira ama kuwa Nairobi jooga ama kuwa gobolada ka soo socdintaba waxaan weydiinaynaa insha Allah tacaala cilaajka inuu furmi doono ama dib loo bilaabi doono maalinta arbacada ilaahay idinka insha Allah tacaala khayr badan Allah idin siiyo meel kasta oo joogtaan waxaan idin leenahay عيد ونكسن عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير